waxaa maanta magaalada Baydhabo oo ra'iisul wasaaruhu ku sugan yahay ay ka dhacay shirar aad muhiim u ah oo ay yimideen mas'uuliyiin oo waaweyn oo ka socda qaramada midoobay iyo World Bank. waxaa kaloo ra'iisul wasaaraha wehliyay golaha wasiirada xubno ka socda oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo madaxweynihiisaba. haddaan si yar kuugu soo koobo arrimihii ugu weynaa laga hadlay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu fariin u diray beesha caalamka fariin ah in Soomaaliya ay diyaar u tahay in uuna ka codsaday uuna ku gubaabiyay in mashaariicda gargaarka loo bedelo kuwo maaragtay horumarineed sababtoo ah sida la socotay Soomaaliya labadii sano ugu dambeysay horumar aad u weyn ayaa ka dhacay dhinacyo badan. sidaas darteed waxaa maanta muhiimadda aan saareynaa ay muhiim tahay ra'iisul wasaaraha baaq u bixiyay ahayd in la bedelo in meeshii looga baahan yahay gargaarna la geeyo laakiin ay noqoto siday mashruucyada ay hadda kadib wixii ka dambeeyay ay programka ugu darsadaan in Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar horumar ah. waxaa kaloo uu ra'iisul wasaaruhu ka hadlay maadaama mar walba ay maaragtay dawladda Soomaaliya ciidankeeda iyadoo adeegsanayso tuulooyin cusub degmooyin cusub la xoreynayo waxaa muhiim ah in gargaarku uu si maaragtay si isdaba joog ah u wada socdaan isla markii meel la xoreeyo loo baahan yahay gargaarkii iyo iskuuladii iyo caafimaadkii in isla markiiba la keeno. sidoo kale wuxuu ka hadlay nabadeynta wadanka ka socota wuxuu maaragtay u soo qaatay maaragtay tusaale nabadeynta uu maaragtay xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha ay ka wadaan gobolka galmudug. wuxuu ka hadlay maaragtay arrimihii xeraale iyo huurshe nabadeyntii badneyd uu ka suubiyay marka iyadana loo baahan yahay si ay nabadeyntaas xididada ay u surato in loo baahan yahay in la keeno gargaar maaragtay tuulooyinkaas iyo deegaamadaas oo meel walba ka socoto in maaragtay waxbarashadii caafimaadkii gargaarkii si kastaba isla markii si nabadeyntu ay u noqoto mid raag